كلمة الله سبحانه وتعالى ينوسو فذوذي تاسو ولا ليلين كرة جوينهي إلهي سبحانه وتعالى إنو قلوبتين إنو كو أنفعه كلمات كحقا إنو كأوران دونه أين قطمدنا فيهن راديسة حالة ديننا أي كفي عناتو أي كنون أكسناتو كلمة دينا ما أنت ولا لي الوحي كساب صنتهي بإذن الله تعالى المعصية تنسي العبد نفسه معصية ولا ليالإني تهي مد أدونك إلا وسينيس نفتيسة قرن مايو دنتيس وحي كجرتو محا منافعات محا خيرية وناقو نقونيسة عند سكرات الموت قبرق مركو قروح حالة برزخ مركو كوكو جيرو وحيالها إلهي سبحانه وتعالى وقبر واقين لها إنو أدونكو إنو إلاوه إنو كشقين أبس آنو كهولنادين مددا يرى كوبا والدنيا دو توغو وحيالها إنو صوت المانية وحيالها كرا أو كبضا أو كمضة ووحيالها لقد حلو معصية ولا ريال محيطة معصية وحيطة قفك مسلمكو إنو خلافه أمرك إلهي يا أمرك رسول كيسا صلوات ربي وسلامه عليه معصية ولا لي الوحي وقيب سميسا صدح الرماد دنبيدنا صدح لا الرماد متكود بيكفر عميسا معصية كوبد والمعصية الكفرية ومعصية قال لماذا إنو قفك مسلم كو إلهي سبحانه وتعالى إنو ككفرية يكفر بالله وبملائكته وبكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره وحوك قالوا بيا تضبضي يا أرميه لهي وسودتشي قرآن كاللغوت المامي سنة الرسول كان عليه الصلاة والسلام النبي محمد كبيامي تاوح لإلى المعصية الكفرية ومعصية لكن ومعصية قال نما أوي معصية دا قيبت هذا لباد ولا لي الوحي تهي ومعصية لكن وبدعه أصل يراد وشيئا كل هين في دين الله إلهي دين تيسا إلهي سبحانه وتعالى ينوموت المامن نبينا عليه الصلاة والسلام ينمو فرن منو صمين وشيء عبادة الله قد قنايو أو عبادة لو كيسينايو
taasina magaca ay shareecadeena islaamka dhexdeeda ay ku leedahay waa bidcanimo. waa arrinka uu nebi maxamedna calayhi salaatu wassalaam uu ku tilmaamay fi alaxaadiith athaabita can الnabiy salawaatu rabbi wasalaamu calayh, athaabitata canhu cafwan. wuxuu nebigu tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh: man axdatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun, akhrajahu muslim. wuxuu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wassalaam qofka ku soo dhex dara arrinka yagan oo ah diinta, shareecada, waxyiga munasalka ah ee nebi maxamed laga soo dejiyey xagga ilaahay subxaanahu wa tacaala. qofka ku soo dhex dara wax aan ka mid ahayn waa mid lagu celinayo buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wassalaam, marduudatun calayh, laga aqbali maayo. yaduna waa macsiyo, waayo qofkii wuxuu khilaafay amarkii ilaahay. cibaado uu rasuulku aanu samaynin ayuu uu la imanaya. arrintaasi yaduna ma bannaana. qofka muslimkana waxa uu looga baahan yahay amase uu mudan yahay inuu ku koobnaado intay shareecadu inoo tilmaantay, intuu nebi maxamed sameeyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh. intaasaa inaga badan, intaasay danteena iyo maslaxadeenu ay ku jirtaa. intaasaa laga yaaba cilmi ahaan iyo aqoon ahaan inaynaan koobin, oo wax fara badan aqoonteedu ay inaga maqan tahay. qaybta saddexaad waxay noqonaysaa inuu qofku amaradii daacada ilaahay iyo daacada rasuulkeena calayhi salaatu wassalaam inuu yadana khilaafo. waxyaalo muxaramaad ah oo laynooga digay inaynu samayno, inuu sameeyo isagoo hawadiisa waafaqaya, isaga oo naftiisa shahawaadkeega raaciya, isaga oo jahli iyo aqoon darro arrintaasi ay u geynayso. haddaba macaasida aynu tilmaannay walaalayaal ee noocyadaa ah, ciqaabo fara badan baa ka dhasha, raad baa ka dhasha macsiyada. waxaan muqadimadan u tilmaamayey si aad ila fahantaan, marka macsiyo la leeyahay ina arrimaha caynkaasiya ina looga jeedo. dembi walba oy aadamuhu ay sameeyaan abbase ay la yimaadaan, saddexdaa arrimood midkood unbay ka farcamaysaa. ima waa kufri, ima waa bidco, ima waa ina daacada nebi maxamed la khilaafo salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh, uu qofku uu macsiyaysto, uu macsiyo la yimaado. wahiya mukhaalafatu lamr, amarka ilaahay iyo amarka rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu khilaafo. haddaba arrimaha caynkaasiya walaalayaal, iyo arrimaha sida aynu u soo tilmaannay, cuquubooyin ayaa ka dhasha, arrimo raadkeegu aanu fiicnayn
qofku adduunyada intuu joogo cawaaqiba xumo ku noqonaysa. cawaaqib xumadaasina adduunyo oo qura kuma koobna, way ku daba soconaysa walciyaadu billaah. markuu qofku dhimanayo, markuu qabriga geliyo ee la geliyo, marka ilaahay hortiisa la soo saaro ee la soo tubiyo, ya aayihiisa dambe ina jannada ilaahay subxaanahu wa tacaala laga mamnuuco. mamnuucnimadaasi ha noqoto mid abadiya, mid weligii allihii aanu janno galahayn oo gaalnimo camalkiisii lagu soo khatimay walciyaadu billaah, abase ha noqdo mid asalkii islaamka haya laakiin macsiyo la yimi, oo macsiyadaasi iyo mukhaalafadaasi intuu adduunyada uu joogay waxa weeye mid ku dhaqmay oo ku caadaystay oo la yimi. marka naarta la geliya ee laga jaro walow bacda mudda ha kuba dambeeyo jannada ilaahay subxaanahu wa tacaala. mana aha naartuna walaalayaal wax loo adkaysan karo. alimaamu ibnu lqayimi raximahu llah ayaa meelo ka mida kutubtiisa ku tilmaamay, sida kitaabka addaa waddawaa, cawaaqiba xumada ka dharanaysa waxa weeyaan macaasida. waxaa ka mida buu imaam ibnu lqayimi raximahu llah wuxuu tilmaamay tunsi alcabda nafsahu, addoonka waxay ilowsiinaysa naftiisa. hadduu qofku naftiisa uu ilaawana ka shaqayn maayo hagaajinta aakhiradiisa, bale waxaa ka dhalanaysa ahmalahaa, waa mid naftiisa dayacya, wa afsadahaa, waa mid fasahaadinaya, wa ahlakahaa, waa mid halaagiya. ilan macaasida oo addoonku intuu adduunyada uu joogo uu ku dhaqmiyo waa mid uu ku halaagsamiyo weeyi, halaagiisana keenaysa. ilaahayna subxaanahu wa tacaala fi lqur'aani alkariim sidaasuu ilaahay subxaanahu wa tacaalana inoo tilmaamay. wuxuu yidhi rabbi jala wacalaa walaa takunuu kaaladiina nasuu llah faansaahum anfusahum ulaa'ika hum alfaasiquun. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo tilmaamay walaa takunuu, ha shabbahina oo ha la mid noqonina kaaladiina nasuu llah, kuwii ilaahay ilaaway. maxaa looga jeeda? ilaahay bay ilaaween. tarakuu taacata allah, ilaahay daacaddiisii bay faraha ka qaadeen. dadkuna arrintaa way ku kala sarreeyaan, mid isagu gaaloobay oo iimaankii faraha ka qaaday sida xaaladda gaalada iyo kufaarta, iyo mid asalkii iimaanka hayaa laakiin daacadihii kale ee ilaahay lagu addeecayey, ee amar qaadashada ilaahay iyo ka tegista laga tago wuxuu ilaahay uu inaga reebay, mid isagu faraha ka qaaday. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inaga reebayaa inaynu kuwaa shabbahno. walaa takunuu kaaladiina nasuu llah, ay tarakuu amra allah, kuwaasoo ka tagay amarka ilaahay subxaanahu wa tacaala. ilaahay aan adeecahayn, amarkiisa aan qaadanahayn, ilaahay aan u khushuucahayn, hogasho aanay ka muuqanahayn, ilaahay aan baryahayn, ilaahay aan u cibaadaysanahayn,
salaadan tukanahayn mawjadaha macaasida dhex qaaday si allaalaya siday u doonayaan. maxaa arrintaa ka dhashay? markay ka tageen ilaahay amarkiisii, markay ka tageen iimaankii, markay ka tageen walaalayaal ka amar qaadashadii ilaahay laga amar qaadanayay rabbi subxaanahu wa tacaala. natiijadu waxay noqotay baaraka allaahu fiikum fa ansaahum anfusahum. ilaahay naftoodii buu ilowsiiyey. waynu tilmaami doonnaa sidii naftooda ay ku ilaaween. ilaahayna magac buu u bixiyey dadka. waa dadka ilaahay awaamirtiisa aan qaadanahayn, muxaramaadka, manhiyaadka, waxyaalaha keeniya walaalayaal yacni ilaahay cadhadiisa rabbi subxaanahu wa tacaala iyo ilaahay nacdashiisa. waxay samaynayaan arrimo sabab ugu noqonaysa inuu ilaahay uu ku nacdalo rabbi subxaanahu wa tacaala. ilaahay dadkaa wuxuu u bixiyey magaca lagu dhejiyey waxay tahay ulaa'ika hum lfaasiquun. waa faasiqiin. fisqiguna walaalayaal wuxuu yahay huwa alkhuruuj can taacati illaah. qofku inuu ka baxo ilaahay daacadiisa rabbi subxaanahu wa tacaala. qofku wuxuu naftiisa ilaahay u ilowsiinayaa ihmaaluhu, naftiisa inuu dayaco, wa tarkuhu waxa weeye inuu qofku naftiisa inuu ka tago oo waxyaalaha ilaahay uu kaga raali noqon lahaa inuu addoonku inaanu ku dhaqmahayn. ilaahayna subxaanahu wa tacaala aanu ugu soo dhowaanahayn. في هذه الآية الكريمة يا آية كلا الله المامة إلهي سبحانه وتعالى آية كلا وحط المامي وكعدي نسوا الله فنسيهم. إلهي أمر كيسي بيكتغين فنسيهم. ilaahayna dantoodii iyo masaalixdoodii iyo danihii naftooda ayaanu ilaahay ugu kaalmayn inay hagaajiyaan. ilan kaalmadu waa mid ilaahay xaggiisa ka tilmaanta rabbi subxaanahu wa tacaala. waxay ahlulcilmigu ay tilmaameen wa nisyaanuhu subxaanahu lilcabdi. ilaahay subxaanahu wa tacaala addoonka inuu ka tago oonu ugu kaalmayn daacada iyo wanaaga. arrintaa waxaa soo guudagelaya ihmaaluhu wa tarkuhu wa takhaliihi canhu wa idaacatuhu. inuu qofku naftiisa inuu ihmaaliyu dayaco, wanaageega inuu ka shaqayn waayo. waxaa arrinta walaalayaal ka dhalanaysaa qofka ceebihiisa inuu arki waayo iyo aafaadkeega iyo waxay naftaasi ay ku dhaliilan tahay. inaanay niyaddiisa aanay ku soo dhacahayn inuu arrimahaasi inuu iska hagaajiyo, uu iska suuliyo. ilaahayna subxaanahu wa tacaala inuu uga toobad keeno. waxaa laga yaabaa qofkaasi inuu ku ciqaaban yahay abase uu ku tilmaaman yahay dembiyo. dembiyadaasi waa kuwa daahira, waa kuwa muuqda, iyo waa kuwa qarsoon weeye. labadaba
waxa weeyaan eegi maayo, u fiirsan maayo, ku dadaali maayo. arrintaasi walaalayaal waxay ina tusinaysaa inuu addoonkaasi inuu yahay mid walaalayaal khasaaray oo ilaahay subxaanahu wa tacaala amarkiisina ka fogaaday. waxaynu casharkeenanaba kelimadeenan kooban aynu ku soo ururin doonna biidni illaahi tacaala, waynu ku soo afmeeri doonnaa hadduu ilaahay idhaahdo ha ku dhaqmin macsiyada ya cabdallah, macsiyada ha ku dhaqmin, waayo taa waxaa ka dhalanaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala dantaada iyo masaalixdaada ina lagugu ilowsiiyo. waayo qofku dembigii buu iska caadaysanayaa, ka fikiri maayo naftiisa inuu hagaajiyo, inuu ilaahay u toobad keeno, inuu qalbigiisa fiiro gaara inuu u yeesho, inuu isla xisaabtamo, inuu waxa weeyi adduunyadani inay tahay mid suulaysa inuu garan waayo. ayuha almuslimuuna cibaad allah, walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala sida wanaagsan ee khayrka leh ilaahay subxaanahu wa tacaala hayna waafajiyo. yaynaan noqonin walaalayaal kuwa adduunyadan dhaldhalaalkeega iyo quruxdeeda kooban ku doorsada jannada iyo daarta aakhiro ee weligeed iyo allaheed baaqi noqon doonta. wajazaakum allahu khayra waaxsana allahu ilaykum wallahu tacaala aclamun wa axkam.